السلام عليكم هديات كعصبتها channel كان ديارة ملعب فضلا سبسكرايب صار لا صعب برنامج ويكي وهالمرقوية إيا دلان maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay xaaladda hooyada la soo darista xilligay uurka leedahay ee loo yaqaano macaanka. Haddaba macaanka sonkorowga mellitusku badanaa loo yaqaano macaanka waa cudurka dheefshiidka kiimikeed oo sababa sonkorta dhiigga oo sarreysa. Hormoonka insulinta waxa uu sonkorta dhiigga ka dhaqaajiyaa unugyada si loo kaydiyo ama loogu isticmaalo tamar. Sonkorowga jirkaagu ma sameeyo insulin ku filan ama si wax ku ool ah uma isticmaali karo insulintu jirkaagu sameeyo. Sonkorta dhiigga ee aan la daaweynin oo cudurka macaanka waxay dhaawici kartaa si yar oo fudud neerfaha indhahaaga iyo kelyahaaga xubnaha gudaha. Haddaba waxaa jira macaan khaas u ah hooyadu xilligay uurka leedahay. Sonkorowga uurku waa sonkorta dhiigga oo sarreysa oo gaadha xaaladda loo yaqaano hyperglycemia oo soo baxda xilliga uurka. Badanaa waxay ka badbaadaa hooyadu dhalmada kadib. Waxay dhaawici kartaa heer kasta waxay ku dhici kartaa heer kasta oo uurka ah, laakiin waxay aad ugu badan tahay saddexda dhexe ee bilood ama saddexda ugu dambeysa. Waxay dhacdaa ama marka jirkaagu soo saari kari waayo insulin ku filan. Hormoonka waxa uu gacan ka geysan karaa xakameynta heerarka sonkortaada dhiigga. Haddaba sonkorta uurku waxay ku keeni kartaa dhibaatooyin adiga iyo ilmahaaga intaad uurka leedahay. Haddaba dhalashada kadib laakiin halista waa la yareyn karaa haddii xaaladda goor hore la ogaado oo si wanaagsan loo maareeyo. Yaa khatar ugu jira sonkorowga uurka? Haweeney kasta way ku dhici kartaa kaadi sonkorowga xilliga uurka, laakiin waxaad ku jirtaa khatar sii kordhaysa haddii xaalado la mid ay kula deris yihiin. Haddaba qiyaasta culayska jirkaagu hadduu ka badan yahay normalkii loogu talagalay ee body mass index-kaagu 18.5 ilaa 25 normalkiisu, haddii aad huru u dhashay cunug miisaankiisu ka badan yahay 4 kiilo iyo badh iyo wixii ka badan, waxaad qabtay kaadi sonkorow uur ilmo hore aad qaaday. Hadduu jiray hiddo uu qabay waalidka ama walaalaha ama faamiligiinu sonkorowga, ama waxaad ku noolayd wadamada sida Aasiya, Madowga Afrika ama Bariga Dhexe, ama waxaad ku dhalatay UK. Haddii haddaba mid ka mid ahi uu kuwani ku quseeyo adiga, waa in laguu sameeyo baaritaanka xilligaad uurka qaado, baaritaanka macaanka. Haddaba waa maxay calaamadaha cudurka sonkorowga uurka? Sonkorowga uurku badanaa ma keeno wax calaamad ah. Kaysaska badankooda waxaa la ogaaday oo keliya marka heerarka sonkorta uurku ay kor u kacdo. Haweenka qaarkood ayaa laga yaabaa inay yeeshaan astaamo haddii heerarka sonkorta dhiiggoodu aad u sarreyso, sida hyperglycemia inay noqdaan haddaba haraad badan ayay yeelanayaan, kaadidoo xaddigeedii ka badanaysa, daal aad u fara badan, afka oo carabka ay qallayl ka dareemayaan. Laakiin qaar ka mid ah astaamahan ayaan caan ku ah inta lagu guda jiro uurka, oo daruuri ma ahan inay calaamad u yihiin sonkorowga uurka. La hadal umulisadaada ama dhakhtarkaaga haddii aad ka walwalsan tahay wax calaamado ah. Haddaba sidee ayay idiin saameyn karaa adiga iyo ilmahaaga? Ilmahaaga waxaa laga yaabaa inuu halis dheeraad ah ugu jiro miisaankiisa oo weyn. Taasina waxay sababi kartaa ilmahaagu inaanu dhalan karin sidii caadiga ahayd,
uu u baahan karo in hooyada ilmahan lagu qalo. Waxay kale ilmahaaga khatar ugu jiraa macaanka heerkiisa labaad mustaqbalkiisa nolosha. Hooyadu waxay khatar ugu jiri kartaa nolosheeda dambe mustaqbalka heerka labaad ee macaanka, amaba waxay khatar ugu jirtaa inta uurka ku guda jirto dhiig karka 50%. in ilmaha isagoo weyn in ilmihi isagoo aan gaadhin taariikhda dhalashadiisii uu ku dhalan lahaa timku ku dhalan lahaa in hooyada la go-aamiyo in hooyada iyo ilmaha la badbaadiyo, sababtuna ay tahay miisaanka ilmaha oo sii kordhaya, taasna ay khatar badan ku keeni karto hooyada iyo ilmahaba. wiilka ku xiga sidee ayaa loo maareyn karaa haddaba macaanka?